micno kuuma samaynayo haddii aad caqli badan tahay ama haddii aad xirfad badan tahay haddii marba dadaalkaaga uu yar yahay caajiskaagana uu ka dalbato dadaal samayntaada. waa hubaal in xalka noloshaada uu gacantaada ka baxsanayo meel dheerna aadan gaari doonin. dhammaanteen tartan ayaan ku wada jirnaa ah in aan wada gaarno heer sare oo nolol wanaagsanna wada helno. marka ma ahan in aad noqoto qof kale jaranjaradiisa uu ku gaari lahaa farxadda noloshiisa. safarka nolosha waa mid lagu kala duwan yahay, sidaas si la mid ah waddada safarkaas loo marayo. waxaa kula gudban marka in aad diiradda saarto kana taxadirto qaabka ay noloshaada u socoto. noloshaada adiga ku noolow, yaysan cid kale kuu yeedhin kuguna noolaan. qoyskaaga iyo asxaabtaada iyo inta kale ee qaaliga kugu ah hagayaal wanaagsan waa kuu noqon karaan, laakiin waa adiga qofka go'aanka mar walba iska leh. waa isla adiga qofka marka uu xaalad adag la kulmo la doonaya inuu iska saaro. waa in aad garato sida loo aamino naftaada, sidoo kale aad noqoto qof geesnimo leh, iskuna filan oo hadaf uu tiigsado leh. caajiska waa cadowga koowaad ee naftaada. wax walba oo wanaag ah oo aad noqon lahayd ayuu kaa hor istaagaa, khaasatan cibaadada iyo horumarkaaga shakhsiyadeed. waa in aad la timaado dadaal adag. dadaalka adag ayaa wax walba beddelo. garashadaas waa in aad lahaato. micno kuuma samaynayo haddii aad caqli badan tahay ama haddii aad xirfad badan tahay haddii marba dadaalkaaga uu yar yahay caajiskaagana uu ka dalbato dadaal samayntaada. waa hubaal in xalka noloshaada uu gacantaada ka baxsanayo meel dheerna aadan gaari doonin. haddaba waa inaad la timaado dadaal dheeri ah oo taxaddar feejignaan ku dheehan. sidoo kale waa in aad garato in qof walba uusan wanaag kula doonayn. dadka qaarna ay u taagan yihiin khatarta noloshaada, adiga oo laga yaabo in aad malayso in ay kuu yihiin saaxiibbo dhaxanta kaa dugaalinaya. dad waxaa jira jeclaan lahaa in aad hoostooda fadhiisato, ayaga oo wejiyadooda marka aad eegto aad isleedahay noocooda maba ku noola dunida. garashada aad u leedahay dadka noloshaada ku xeeran qayb weyn ayay ka qaadan kartaa hagidda aad ku hagto noloshaada hadaf wanaagsan. noloshaada ka jar kana saar qof walba oo dulsaar ku ah oo wax uu kugu soo kordhinayo aysan jirin. qaladaadkaaga wax ka baro. waa hubaal in mar walba qalad kaa dhacayo. taas macno ma lahan, sida aad wax uga barato ayay ku xiran tahay. qalad sidiisaba marka koobaad qalad lama dhihi karo, laakiin marka aad wax ka baran weydo oo uu mar labaad isla qaladkii kaa dhaco ayuu qalad noqdaa. weliba qalad nacasnimo ayaa la dhaxaa.